رئيس وزراء ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya ahaydna wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya Foosiyo Yuusuf Xaaji Aadan oo haddana ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee dawladda federaalka Soomaaliya oo waraysi gaar ah siisay telefishinka Star TV ayaa ka warbixisay xiriirka dawladda Soomaaliya iyo Imaaraadka waxa aan wax ka weydiinay khilaafkii soo kala dhaxgalay Soomaaliya iyo Imaaraadka iyo halkii uu ku dambeeyay iyo sidoo kale xalka loo heli karo hadii uu khilaafkii hadda taagan yahay xildhibaan Foosiyo Yuusuf Xaaji Aadan ayaa sharaxaad ka bixisay in Soomaaliya iyo Imaaraadku aysan kala maarmi karin balse dawladda Soomaaliya looga baahan yahay in ay dhaxdhaxaad ka ahaato dhammaan khilaafyada wadamada khaliijka dawladda federaalka Soomaaliya ee haatan adigu aad xildhibaanka ka tahay waxa dhaxdooda ragaadiyay khilaaf weyn oo xataa ilaa qaramada midoobay ah hadda soo fargelinayso bal khilaafka markii aad fiiriso maadaama horeyna aad ra'iisul wasaare ku-xigeen dalkan uga soo noqotay arrimaha dibadda Soomaaliyana aad uga soo shaqaysay diblomaasi weyn aad ahayd bal arintaas sidee kula muuqataa is leedahay khilaafkaas ee labada dawladood soo waday horta dawladda Imaaraadka waa dawlad xiriir aad u fog inaga dhaxeeyo waa dawladii Sheekh Zayed oo ka sheekeeyay Allah naxariista inay iyagu inoo baahnaan jireen berigii hore sida igu maqaala ah waayadii hore sakada iyagaaba loo diri jiray inaga u diri jiray waayadii hore sakada intaanay waxba kontonaadkii wixii ka horeeyay waa dad ummad Soomaaliyeed oo aad u fara badan ay ku nool yihiin dalkooda waa meesha kaliya ee xarunta xawaaladaha ee Soomaaliyeed xarunta markii meel walba adduunka laga xidhay ee rugta ganacsiga ee Soomaaliyeed ay ka furan tahay ee qurbaha Imaaraadka xoolaha ugu badan iyagii Sacuudiga ay naga qaata marka marnaba horta ma kala maarano waa xaqiiqatan ma kala maarano markay halkaan yimaadeen inkastoo kulliba dareenka qof kasta Soomaaliya oo wax ogi oo yahay maxay Arabi guud ahaan inoo qabatay intaasaan baaba'aynay intaasaan dhibaataysnay intaasaan dagaal jiray intaas ma aragtay marka serviceska laga saaro Imaaraadka dhexdiisa iyo xoolaha inaga qaadanayaan maxaa halkan laga qabtay gudaheena Imaaraadku waa khaliijka waxay naga dhaxeeyaa علاقات هذا فوق ولا النماء تامعناه ما ها إن أرميهن جارك يا فرقلين إن لقوا سماية دولة بدن بدنه ده أو قدينه فرقلين هسه دولة ده فرق بدن أو خليجكو كمدي هاي أو قلبيتكو كمدي هاي أو شاركو كمدي هاي أو عد كستاهنا مشان استراتيجية ده إلا ده يدقالها كتيرة عالم كي أفرنت هاي أنت أنبضل هاي ندور كبقولوا مليانة شاركنا إثيوبيا اللي قبل أبي لوحي علوشة كسيتشرة ضدكاس دنه هذا يورشده هذا يلعب تيساو سارة بيرمانين كيبيان هل كيسال الباب كومريان الطريقة هو صوماليا تكتب من باسواد وير أو كباستيجا دوير هي أي إنه قلوا يجبوتي والله مدا يدنا مركز صوماليا ده نسكت يعني عيد ولا بوارب تاينه وحكي قشته أما وح فرق جلسه أما عيدا كيسته أما ما قرنا يسا مركز إماراتك أنا واحد قبائل هشين دونه دولة إنه سي قلب أديك وقولوا واخدين دحدحات كتها خليج كتقال كيس وانا يكون صحيحين ولا بو صحيح هي إلا إذا دحدحات بانو نهاي مركا لكن دولته هذا دحدحات من نقون أو مركي لا فيريو وحي هذا دولته عن الشبطين يخرعي دولته قدر هذا مي أنا ما قبضتها ميريا ده تا قبت أنا ما قبضتهاس دولته وسير رسمي وتر مدحونه وأكيد تجي دور شرط إماراتك مركا وحاوي إيشيو كفير شو بهن إيشيو أنا لقول دقيقين دولتنا وحن كلها تلين لها إن علاقات كإمارات كسوء وصفي عن أي معركتي Soomaaliya iyo Imaaraadka ma ka waqtiga hordhicina waxa sheegtay in ayna dawladda Imaaraadka iyo dawladda Soomaaliya xiriir fog uu ka dhaxeeyo sida daraadeena ayna kala maarmi karin ma la kala maarmo xalabaad isla halku aniga ku sheegay halku waxa weeye dawladda Soomaaliya Imaaraadka inay wada fariistaan wada hadlaan waliba dawladda Soomaaliya xodashada bilowdo
oo wada hadalka bilowday karaad leedahay hadii bal labadoodu ay waa hawl dawladda u taalo weeye cid dhexdhexaadinaysa hawlada dawladda u taalo weeye marka waa Soomaaliya iyo Imaaraadka cilaaqaadkooda waa in la soo celiyaa federal government ka hadlayna dawlad goboleedyadu waa la saaxiibay federal government-ku waa inay laga fiirsadaa because lama kala maarmo Imaaraadka anigu fikradaas qaba qadarna lama kala maarmo labadu waa laba dawladood oo walaala iyaga istilaya inagu inaynu dhexdooda ku dhimanno maaha iyagu hadday haystaan inay siyaasadoodu inaga gudaheena soo gasho maaha inagu inaan labadaba cilaaqaadkooda hayno saasaan qabaa anigu waan gartay adigu waxaad ahaan jirtay wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya bal intii aad wasiirka arrimaha dibadda ahayd Imaaraadka iyo dawladda waqtiga aad wasiirka ka ahayd aad baan isugu wanaagsanay waqtigaas aad baan waan casumi jireen waa u tagi jirnay waa heshiisiyaan anigu la saxeexay baa jira ma garanaysaa marka waxaan ahay anigu dadka aaminsan labada dawladood ee walaalay istilaya inagu inaan dhexdhexaad ka ahaano onan midna raacin laakiin labadaba aan la lahaano xidhiidhkeennii rasmiga ahayd taasaan aaminsanahay dawladda Imaaraadka iyo dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan khilaaf xoogani dhexmaray taasoo keentay kadib markii ay dawladda Imaaraad ay heshiisiyaal la galeen qaar kamida maamul goboleedyada Soomaaliya markii laga tago arinta Somaliland oo iyadu ah arinka gooniya tan maamul goboleedyada Soomaaliya محمد عبد عثمان محمد فرديري ستار تي في مقالة مقدشو.